waxaan ku hadlayaa dabcan waxa weeye dhalinyarta asxaabteeda kale aan ku wada jirno maangodol ma aha muxuu ahaa afar qof sidaad ku aragtaan mararka qaarkood showgii ugu dambeeyay ama 5 qof laakiin dhammaan waxaan aaminsanahay dhammaantiin meynad waxa weeye muxuu ahaa ka mid tihiin waxaan si gaar ah mar walba ugu mahadnaqayaa waxa weeye professorka oo aan aaminsanahay inuu qulubteeda iyo qulubtiinaba u dhow yahay oo aan u bixiyo mufakir siyaasi ma aha muxuu ahaa siyaasi Professor Abdullah Yaasiin oo xataa sessionada qaar waxa weeye muxuu ahaa nagala qayb galay Sheekh Maxamed oo xagga dambe fadhiyo oo isaguna runtii si joogta nagala qayb galay marka runtii sida ka muuqata loogadu ma aha muxuu ahaa inay baraarug hawsha iyadu waday oo ay dhabar kaga jabtay waana sida saxda ah mar walba maangodol macnaheedu waxa weeye waxay la garab taagan tahay risaalada ay wado ay runtii la garab taagan tahay taan xiisaynayo mar walba inaynu xawsnaano waxa weeye macradku marka uu dhamaado buwaagta inta taala ay goodo nad xawsataan weeye sanadkii hore 3 cisha loogu tala galay malaha maalin iyo bad mise 2 cishay wixii meesha yaalay muxuu ahaayeen ku dhamaadeen maantana waan filayaa intii halkan joogtaa inaynu gali kooraba muxuu ahaa wax badan la duulo doon kutubta qaybo badan oo kamid ah walow haba koobnaadaan inta nuqul ee ka yaala maktabadiye waxaad ka heli doontaan hadii ilaahay ila maktabada maangodol markii hore waxay ku wada jirtay imaaratul khayr sanadkii ugu dambeeyayba laakiin hadii ilaahay ila sanadkan soo socdo meel ka weyn ayaanu bisha soo socotaa waan idin soo sheegi doonaa hadii ilaahay ila jigjiga dhexdeeda ayaan rajaynaynaa waa meel ka weyn meeshii hore facility-guna ka yar badan yahay marka waxaan ugu bashaareeynaa inta ay ka goodo ee halkan maanta ugu heli weeyda kitaab isagu leeyahay waana ugu fiican runtii inaad kitaabaad leedahay adigu haysato ka public ah ee maktabada maangodol dhex yaala oo majmuucada taala runtii wax badan oo kamid ah heli doonto buwaagta ay noo keenaan dhalinyarta baraarug runtii taladeedana laga wada qayb gala guud ahaan ma aha runtii qayb kordhinaysa luqadda runtii waa qayb kamid ah in luqaddu korodho ama afka carabigu haddaan kaasoo maanta tusaale ahaan soo qaato laakiin waxay kubcinaysaa guud ahaan fahankeena waxay kubcinaysaa wacyigeena iyo fikirkeena waana meesha aynu u soconnaa sida theme-kooga dhalinyarta ugu qoran waa aqoon fidin oo inay aqoontu korodho iyo fikir kobcin labadaasoo isbarbar socda haddayna aqoontu kaa saacidin in fikirkaagu kobco oo meeshii shalay aad taagnayd maanta aanad ka maskax ballaadhnayn ka furfurnayn aqoontaada akhriday runtii waxa weeye waxba kuma taraso cumarna waan garanayaa asxaabta uu sheegayo rag ka mid ah markii dambe ugu tagnay qaahiro ugu tagay jamaal colaad iyo muxuu ahaa iyo rag kale oo intay ciraaq tageen xagga iyagoo joogaan ugu tagnay raggaas waxay iga sheekayn jireen markay yimaadeen inay kelmad carabiya aanay waxa weeye muxuu ahaa aqoonin markii jaamacadaha muxuu ahaa laga baxayna runtii waxaad arkaysaa isbedelka nololeed ee ku dhacay waxa weeye muxuu ahaa maskaxdoodii hadda ma aha textbooks English bay ahayn laakiin wada xiriirka iyo akhriska kale ay waxa weeye ku dhex jiraan baraarug muxuu kaga duwan yahay kuwa kale ama macradada kale muxuu kaga duwan yahay anagoo markaa secondary-ga sii dharmaynayna ama sanad nooga dhiman yahay ayaa 2004 waxa lagu qabtay hoolka shaqaalaha macradkii aan idhaa macradkii ugu horeeyay Hargeysa lagu qabto qolo maktabad halka ku haysan jirtay suuqa oo la oran jiray al-jil al-jadid ayaa waxay ku qabteen markaa macradkaasi suuqa marka la yaraan class nahay baan dhammaan ku tagnay guud ahaan waan xasuustaayo anigu marka lacag badan ardaygu ma haysto deeda 3 buug oo min $1 maalinta ahaa ayaan waxa weeye soo iibsanay maalin dhaweyd baan waxaan aad ugu xasuustaa mid ka mid ah culimadeena oo buuggii gacanta ku haya kii laftiisii aan maalintii muxuu ahaa iibsan oo aan u haystay igalo anigu marka waxa kaliya ay ku gartay buuga xaqiisa dambe aniga iyo in muxuu ahaa reer Muqdisho ahaa iyo in hada jooga muxuu ahaa India saddexdaas xagga dambe ku qornay muxuu ahaa notice yaro kooban waxaan u jeedaa u fiirso waa 2004 ilaa maanta wuxuu dhex wareegaya balaga yaab buugaasi muxuu ahaa bulshadii u dhex wareegaya waxa qoran uu haraa waxa qoran uu gudbaa waxa qoran hadiyad baa waxa weeye muxuu ahaa guud ahaan la isku siin kara waxa ugu qaalisan ee qof saaxiibka iyo meel fog ka joogana waxa weeye inaad maanta intaad 2 buug ama 3 buug u xusho aad runtii tira waxa weeye muxuu ahaa guud ahaan qodobka labaad ee baraarug kaga duwan tahay waxa weeye kutubta carabiga markay noqoto ee magaaladeena yimaada waxay u badan yihiin nusuus diiniya ama nusuus luqa oo lagu dhiganayo masaajidada waana muhiim dabcan in la barto waxa weeye luqa ahaan loo barto ama jaamacaadka lagu dhiganayo laakiin kutub kale oo xambaarsan faham iyo fikir iyo wacyi xambaarsan oo aad inoogu yimaada ma jiraan sadaraadeed kutubta baraarug waxay wax ku darsi kooban ka yihiin in ay mar labaad ka qayb qaataan ama ay dheeli tiraan kutubtii kale ee inoo imaanaysay guud ahaan iyadoo taasina ay ka midnayn guud ahaan hawsha wadeen
saddex qodob ayaan ku soo koobi lahaa waxa weeye baraarug waxaynu ku xulanayno kuna amaanayno marka koobaad inaad arkaysan Facebook-ooga mooyaane waxa yaalay 201 nooc maaha kitaab kasta wuxuu noqon karaa maxay intaasoo xabaa ka ooli karaa sidii hadba loogu kala dheereeyo laakiin intaan arkayay waxa qornaa 201 kitaab oo kala duwan hadhow mid kasta waxa ku ooli karaa laga yaabo tiro muxuu ahaa aad badan wayna adag tahay intaasoo collection in meel muxuu ahaa in lagu helo qodobka labaad waxa weeye waa qiimaha haddaad u fiirsato muxuu ahaa qolyaha daabaca buugaagta iyo qiimaha ay siinayaan iyo qiimaha imika ku dhex qornaa muxuu ahaa xayisiiska runta ma dul tagineed waa qiimo aad u kala fog qiimo 25 aad ku arkaysay dad maanta Amazon ka qof ku soo qaaday iska dhaaf transportation kii wixii kala fuulaya ayaa kan ku yaala $6 buu ku yaala ama $8 buu ku yaala runtii iyagana ugu mahadnaqaya dadaalka dheer ee u galeen inay kutubtaasi qiimaha inta la hargeysa dhexdeeda ay ku keenaan dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay markuu inaga dhamaado muxuu ahaa macradku wixii kala soo haran waxaan isku iman doonaa hadii Ilaahay dhamaan godol aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh